بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال واختيارا ضمبا وحيالها كأفا في وحا كمدا دليسيها هيسه واحد مدى وقتيا إنه واحد اسكب عادية نقدان يموزي كدو كاريجي ميل مرأيا موطبشاشتي ميل مرأيسا قريجي لدول مرأيو meel walba waxaad moodaa inay bahashii muusikada ahayd cirkaa marayso oo weliba aan lala xishoonahayn arrintaasi waa arrin aad iyo aad iyo aad looga xumaado runtii weeye loogana naxo munkar iyo xumaan iyo macsiyo inay bulsho muslima sidaa ugu dhex faafto oo sidaa oodaha u goosato waa runtii arrin aad iyo aad u liidata weeye heesuhu walaalayaal waa wax muxaram ah وإلهي سبحانه وتعالى حرمي نبي يسوع عليه الصلاة والسلام أو حرمي وحنبي تلمام عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف ومضي إذا وحا كم من يقوم دونه تضحر عشان دونه وحيالها محرم كأ وحيالها محرم كي حراشان دونه وحا كم إذا خمرضة وحا كم إذا الزندة وحاكم ذا موسيقى النبي عليه الصلاة والسلام وحياله محرمة لكن أمده سوء ومق مياه وحد المدينة حلال تهي ووحو تلمام النبي عليه الصلاة والسلام خمرنا وحا لو عبد دورا سيدين حلال تهي الزنا وحا لو سمين دورا سيدين حلال تهي ما رفتي موسيقى وحا لو دبيسون دورا سيدين حلال تهي أي نبي تلمام عليه الصلاة والسلام وحو كان النبي عليه الصلاة والسلام inuu yiri laba sawt ama laba cod waa la lacnaday ay nabiga kaleey salaatu wasalaam sawtaan mal'uunan laba cod way lacnaday nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la tumo ee lagu heeso marka qofku faraxsan yahay nicmo haysto iyo waxa lagu baroorto marka musiibo qofka ku timaado labadaaba waa laba cod oo mal'uuna nabiga kaleey salaatu wasalaam lacnaday آيات القرآن قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله أو إلهي سبحانه وتعالى صحابة رسولك وابن عباس يا ابن مسعود يا قيركود يا تابعين أي كمله المجاهد يا قتادة يا قيرك حسن البصري وحيكون فسرين إن لو تشيدو هاسها إن لو تشيدو أرنتاس ولا ليال ومنكر للربو in la joojiyo in ilaahay looga baqo in laga waantoobo heesuhu waxay keenaan cawaaqib xumo badan cawaaqib xumada waxa kamid ah heesuhu keenaan dhageysigoodu waxay kala teedaan oo maaragtay kala dhex istaagaan qofka iyo quraanka kariimka macquul maaha suuragalna maaha qof heesaha jecel oo markasta ay dhagaha ugu jiraan oo heesa dhageysanayay inuu quraan jeclaado oo quraanka macaansado oo quraanku qalbigiisa galo abadan suuragal ma labadaas meel ma wada galaan qofkaaga muslimka ee daawanaya rag iyo dumar ka doontiba ahaw adigu kala dooro inaad kitaabka ilaahay macaansatid dhageysigiisa iyo xifdintiisa iyo akhriskiisa iyo la noolaanshihiisa inaad dooratid heeso iyo qashin iyo waxaan macno lahayn heesuhu markaa dhibaatooyinka keenaan kow waxaa ka ah inay kala teedaan oo kala dhex istaagaan qofka iyo quraanka kariimka qodobka labaad oo dhibaatooyinkooda ka mid ah heesuhu waa wadada loo maro zinada iyo faaxishada loo maro weeyaan maxay ka sheekayaan heesaha ay maanta la dhageysto ee dhalinyarteenu dhageysanayaan meel walba ka baxaya maxay u badan yihiin waxay ka sheekayaan calaaqaadkii rag iyo dumarka u dhaxeeyay waxay ka sheekayaan xasaasiyad iyo xiriirka rag iyo dumarka ka dhaxeeya ka sheekayaan Soomaad garanin taasoo keenaysa qofku markay ku soo noqnoqoto waxaas inay qalbigiisa degaan inuu waxa ku fakaro kadibna inuu raadiyo suu fulin lahaa asaguna oo raadin lahaa waxay dhahaan marka culimadu waa bariidu zina ay yiraahdaan waa maaragtay dambaalka zinada weeyaan waxa kamid ah oo dhibaatooyinkooda walaalayaal kamid ugu dambaysiinayna heesaha la dhageysto oo qofku uu joogtay waxay keenaan su'ul khaatima wal iyad billah qofka in khaatimadiisu xumaato ayay keenaan inuu dhinto asagoo heesa dhagaha ugu jiraan inuu dhinto asagoo heesa qaadaya
marka la yidhahdo war shahaado inuu shahaadataykii kari waayo oo heese ku celceliyo way dhacdaa wayna badan tahay wax badan baa la arkay qof sakaraadayoo sii dhimanaya oo dadkii hareerihiisa jooga ay leeyihiin war laa ilaaha ila allaahu dheh oo hees ku celcelinaya somaad garanin sababtu waxaa weeye qofku wuxuu ku dhintaa oo maaragtay ereygiisa u dambeeya u noqdaa wixii intuu adduunka jooga uu jeclaa wixii qalbigiisa ku weynaa wixii carabkiisu aad ugu celcelin jiray ayuu qofku ku dhintaayoo noqda waxa la yidhaahdo aakhirkana uu ku geeriyooda marka waxay keentaa heesaha oo lagu celceliyo oo la barto oo la xafido oo qalbiga la gashto oo la dhagaysto oo sida dhalinyarteenu u badan yihiin maantee khaatimo xumo ay keentaa khaatimo xumo ayay keentaa waxaynu ku waaninaynaa dhalinyarteenna war ilaahay ka baqa oo mustaqbalkiina u tudha oo wax ilaahay xarimay waxbaha macaansanina oo adduunyada waad ka tegaysaan oo dhalinyaronimadiina uga faa'iidaysta wax qiimo leh dhagaysta wax idin anfacaya inta aad hees dhagaysanaysid iyo qashin maad dhagaysatid gabayo faa'iido leh maad dhagaysatid suugaan aad wax ka faa'iidaysid oo erey ka faa'iidaysid oo xikmad ka faa'iidaysid oo gabaygeeni buuxo maad dhagaysatid heesaha aan muusig iyo qashinka lahayn ee laga yaabo inay xikmad iyo wax wanaagsan ka hadlayaan waxaasoo dhan shareecada ay ku ogoshahay maad dhagaysatid qur-aankaada iyo diintaada iyo maaragtay wacdiga iyo axkaamta iyo waxa ku saabsan maad dhagaysatid ku bedela noloshaada inta heesuhu kaa qaataan waxaad ku bedelataa wax adduunkaaga iyo aakhiradaada ku anfacaya ku bedelo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu